Halkani waa suuqa xoolaha degmada Buloburti ee gobolka Hiiraan, waxaana loo iib keenaa maalinta Sabtida xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela, ariga iyo lo'da. Maalinta Sabtida ayaa ah maalinta ugu ganacsiga xoogan degmada Buloburti, waxaana looga soo ganacsi tagaa tuulooyinka ku hareeraysan Buloburti. Dadweynahaasi u soo safra degmada ayaa waxna iska iibiya waxna iibsada maalinta Sabtida. Hase yeeshee shacabka ku dhaqan degmada Buloburti ayaa jid dheer iyo jid gaaban u maray in ay shaqayso lacagta shilinka Soomaaliga walow aysan taasi dhicin beddelkeeda lagu kala ganacsado Buloburti adeega EVC Plus oo aad ay u suluugsan yihiin shacabka, maadaama adeegan uu asigu ximbaarsan yahay culays u gooni ah oo ah ateenada adeegan uu ku shaqeeyo ama isgaarsiinta oo hawada laga saaro subax kasta muddo dhan 3 saacadood, sidaasina uu ganacsiga degmada hakad ku yimaado. Muuse Maxamed Barrow oo ka mid ah ganacsatada iibisa xoolaha ayaa iyaga warramay baahida ay u qabaan inay shaqayso lacagta shilinka Soomaaliga iyo dhibka ay ku qabaan adeega lacagta EVC Plus-ka ee haatan lagu ganacsado degmada Buloburti. Markaan ka warramo xaaladda guud oo degmada Buloburti suuqeeda xoolaha xooluhu waxa weeye horta qiimahoodu xoogaa kor bay u soo kaceen xilligan waxa caqabad ku ah lacagtii shilinka Soomaaliga oon ka socon haba yaraatee suuqdan Buloburti dhammaan taas marka aan ku noqdo dadku ma noolaa karaan ilaa ay ka helaan lacag ay isla dhax maraan ay wax yar iyo wax badan waxay helaan ay ku gataan oo qofkii masaakiin oo gacan taagta wax laga siiyo dadku ma noolaan karo noloshiisa cariiri ku jirta markaan u soo noqdo qiimaha geela hasha weyn oo geela horta Soomaaliyeed waxba meel ay joogaan meeshan hadda anaga joogno oo degmahan Buloburti geela jooga dhaxdhaxaad way geela aad ugu koreena ma aha geela aad ugu hooseeyo sida geelan maarta dhulka cabud waaqay meelahan laga helo ma geel dhaxdhaxaad oo fiican way qiimihiisa marka hasha jarka ah oo waxa la iibiyaa lacagta dollarka 800 900 adiga geela iska hooseeyo waxa way 6 ilaa 5 meelahaas ayaa la iibiyaa Watahay ka waran marka xilliyada kaleento ateenada ay maqan tahay ganacsatana waa tiino geel iyo xoolina waa keenteen ateenada ay maqan tahay dadka si loo macaamiishin dadka waxa loola macaamilaya waa taas waa caqabada ugu daran way dadka waxa way ayagoo lacagta gacanta lagu haybay marba waxay ku leeyihiin waaba keenayna hadii ay ateena maqatan waaba ka faa'iideysanaan waxa waa inta wax laga helo ay inta wax la tagaysaaba inta la tagayda ay farbadanta waddankeena hadda dawlad aad u adagoo waxay xakameynaya ma joogan marka caqabaday nagu tahay lacagta aan sarraf lahayn oo dollarka kaliya adagna aadan dhibaato ugu qabna wata marka ateenada maqan tahay waxa dhacdo dadka inay dhahaan waa suturina oo lambar ay idin reebaan taasoo kale ka waran oo marka gaalada ka wacdaan oo lambarkii inuu dansan yahay iyo in liiga qaban waayo labadaas taas ma la kulantaan waa la kulanaa wax badan aan la kulanaa qofku hadduu doono la barbeenahu kiisa inuu ku sheega qof ilaahay ka yaabaa ma arkayda sidoo wax kugu sheega wax ku soo dhiibana waa jiriya caqabad waa tahay waa aad iyo aad u badan tahay wata marka maxaa ka codsanay marka dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Hirshabelle maamulka degmada Buloburti maadaama lacagtii cabasho badan loo qabo ateenada xilliga ganacsiga la qaadayo maxaa codsanaysaa warkaaga ugu dambeeyo yoota ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore horta wax ka codsanayna in wax khayr qabanna siiyo haddana cidii u adeegida dadkan oo ma arkaysa ama dawlaha ahaato ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado wixii beerkii baahan oo dhan horta waxa u baahan wixii qooday oo dhan ay u baahan yihiin ilaahay aan u baahanahay wixii caqabada hadda la haysa oo ilaahay xigto ma arkaysa ay wax walba ka yimaada wixii laga dul qaado oo dhan anaga ilaahay xigto ayaan uga baahanahay Abshir Maxamed Xare xogayaha dawladda hoose ee degmada Buloburti ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu u shaqeeyo suuqa xoolaha degmada Buloburti kuna baaqay in mar kale dib u shaqeyso lacagta shilinka Soomaaliga ku soo dhawaada suuqi waa kana hadii ay gudin suuqi ugu weynaa degmada Buloburti waaye waxay isku jirtaa ariga iyo looda iyo hadii ay gudin geelka intaas ayaa lagu gataa bulshada degmada Buloburti ku nool iyo hadii ay gudin nawaaxigeeda suuqan ay soo shaqo tagaan maalinta Sabtida dhibaatada ugu weyn waxay tahay maadaama ka socon lacagtii shil Soomaaliga ayaa dhibaatada ugu weyn ay tahay horta iyo 3 saac oo adeena ay maqan tahay maalinta Sabtida taasina goleedo waxaan ka codsanayaa in dawladda Hirshabelle iyo dawladda federaalka ay naga caawiyaan in lacagtii degmada Buloburti ku soo celiyaano qaasatan
iyo haddii aan lagu adeeganaya waqti kale in naga dhigaan waayo maalinta sabdiga waa waay miig iyo magaalo baa isku imaanayo marka waa lagu wareerayo markii adeeganaya la qaado kale camal shacabka degmada Buloburte ayaa ah kuwo u soo dhabar adeegay go'doon ay muddadiisu gaartay 7 sano isla markaana ay hareer socdeen caqabado dhowr ah sida lacagta shilinka Soomaaliga oo degmada ka shaqeyneen isgaarsiinta oo maalin kasta muddo dhan 3 saacadood hawada laga saaro iyo duruufo kale oo ay qabaan shacabka ku nool degmada Buloburte. Cabdisalaan Maxamed Ibrahim, Cabdisalaan Habi, barnaamijka hargalka RTN Buloburte.